deeqdan lacageed ee uu soo dhiibay Cabdi Maxamed Cumar Hagafey oo iska ayaa ururka daryeelka naafada gobolada dhexe oo loo wakiishay qaybinta lacagtaasi waxa uu maanta kala gaarsiiyay ku dhawaad 30 ruux oo kamid ah naafada ku nool magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. madaxa xafiiska ururkan ee gobolada dhexe Sheekh Cabdullaahi Macalin Cumar Jaamac ayaa sharaxaad ka bixiyay lacagtan meesha ay ka timid iyo sida ay u qaybiyeen. lacagta hadan ka warbixin sida ku timid lacagta waxa soo dhiibay in la yiraahdo Cabdi Cumar oo kamid ah dadka naafada ah markuu sawirro la qaaday hadda koor iyo u arkay ayuu lacagtan walaalihiis ugu soo deeqay oo naafada kala ah marka lacagtan qofku waxa loogu talagalay $10 in la siiyo insha Allah dadkan intaan hadda waa la siinayaa dad kale oo maqan oo xaafadiga laga soo qaadi waayeen ayagana insha Allah way gaaraysaa insha Allah. qaar kamid ah dadka naafada ah ee maanta lacagtan la soo gaarsiiyay ayaa iyaguna waxay ka mahad celiyeen deeqdan ay heleen waxaana ay codsadeen in la caawiyo. alxamdulillah magacayga Axmed Cumar ayaa la yiraahdaa waxaan kamid ahay ururka naafada ee magaalada Cadaadad Xamay Xeeb waxaan ka mahad celinaynaa deeqda lacageed oo na soo gaarsiiyay sida naloo sheegay walaalkeen Cabdi Maxamed Cumar noona soo marsiiyay ururka daryeelka naafada lacagta waa soo gaartay dad baahi u qabay ayayna soo gaartay baahideedana hadda intaan waa maarta waa waxba kama dabooli karto laakiin waa mahad celinaa laakiin waxaan rabnaa maarta in sidoo kale daaqil waxay awoodaan noo soo gaarsiiyaan. magacayga waxa la yiraahdaa Cumar Yarow Abtidoon waxaan ka mahad celeynaa Cabdi Maxamed Cumar Hagafey deeqda uu na soo gaarsiiyay walaalkayo waana u baahanahay waana na soo gaartay waa uga mahad celeynaa waxa hadii ay ku deeqdaas walaalkay noo soo dhiibay dadka la midka waxaan ka doonaynaa sidoo kale to deeq inay na soo gaarsiiyaan waa u dhibaataysanahay waana uga mahad celeynaa. maxamed walaalkay ninka la yiraahdo Cabdi Maxamed Cumar lacagtaas uu soo gaarsiiyay waa ku mahadsan yahay khayr alla siiyo wuxuuna u soo marsiiyay ururka daryeelka naafada waana soo gaartay waana uga mahad celeynaa waxaan leenahay sidaas oo kale dadaalkeeda sii wada asaga iyo dadka maaragtay jaaliyadaha dibadda oo dhan inay barnaamijkaas dadka soo gaarsiiyaan waana ku mahadsan yihiin waana uga mahad celeynaa. Assalaamu calaykum. dadkan oo isugu jiray indhoolayaal curyaan iyo kuwa kale oo naafo ka ah xubnaha muhiimka ah ee jirka ayaa qaarkood waxay la nool yihiin duruufo nololeed oo adag